najwa qisadeedu waxay tahay iyadii ninkeedu horan ka wada hadda laakiin waa gabadh la soo furay ninkeeda xamaada ayaa la yiraahdaa way isqabeen muddo gaadhaysa 12 sano 12 sano miyaa arrintan ayaa dood dhalisay mawduucan ha ahaado arrin hadda qusaysa iyo mid aan qusaynin laakiin mar kastaba waa mid la falgalaya lab iyo dhadig oo waa isku maqannahay rag iyo dumar haddaan nahay arrintan waxa ay dood aan ilaa hadda jawaab sax loo helin dhex dhigtay ragga iyo haweenka Soomaaliyeed ragga ayaa taagan waa wax la filan karo in gabar aad u dadaalaysid u ordaysid u shaqaynaysid doodka jawaan culays aad u qaadaysid meel kasta aad tagaysid in wixii hantiya iyo khamshaha ee soo dhaca iyadoo isku qorta dhoon ku dhada leenta cad arrimaha noocaan oo kala ah dhowr jeer ay u dhaceen iyana horta ku sii fogaanine sheekeynteeda wax yar oo hor dhaca aan ka fiirsano sheekadan 12 sano ayay isqabeen ninkeeda xamaada wuxuu ku maqnaa wadamada carabta gaar ahaan imaaraadka xaggaas aanu ka shaqeynay iyaduna wadanka Masar ayay ku nooleen guri ayay iibsatay iyo dahab iyo waxyaalo kale fara badan lacagtaas oo dhan waxa soo diri jiray ninkeeda xamaada oo ku soo daalay kuna soo dhididay oo dalka dibadiisa ku noolaa kadib 12 sano kadib ninkeedii wuxuu ku soo noqday wadankii Masar ehelkoodu waxay ku yiraahdeen gabadhaadii waxay ka dalbatay furniin maxay ahayd sababtay u dalbatay furniinka waxa la weydiiyay maxaad isku furaysaan ma dagaal baa dhex maray labadiina najwa wax jawaab ma soo gudbin baxay dhaaf betri albaabkaana ka soo xiratay guriga sababtoo ah iyada ay magaceeda isku qortay ninkii waa iskaga tagay kadib arrinkii jaarkii ayaa soo dhex galay waxaan isku dayeen inay bal arrinkan dhexdhexaadiyaan oo arrinkay dejiyaan najwa waxa isku dayday gurigeena iibiso waana iibisay dhaqaale badanna way ka sameysay muddo kadib way xanuunsatay waxay hanti lahaydna waxay ku baabaaday daweynta xanuunkeeda haddaba dib ayay u soo noqotay waxaanay rabtaa inay ninkeedii isku soo noqdaan iyo ubadkeedii aanay 3 sano arag 3 sano maxaa dhacay haddaba aan ku su'aala gabaray maxaa ku kalifa ayay kula tahay gabadhan inay go'aankaas qaadatay markii hore oo ninkeedii oo u kufaakacayay u daalayay u rafaadayay ay liinta cabsiiso oo ay u goos maxaa kalifa tan kale wiilow maxaa sameyn leh go'aanka uu qaatay ninkan dhalinyarada ah ma ku saxan yahay soo ku qaldan tan kale haday adiga kugu dhacdo tusaale oo adiga ay kugu imaado rabbi kugu ma keenay inkaarna ma ahay maxaa sameyn leh ma aqbali lahayd arrintan oo cafi iyo musaamax miyaad dhihi lahayd mise liintan iguma socotaa dhihi lahayd arrintan ma jirto mana shaqeynayso bataatan maxaa dhihi lahayd adna inaan aad wadaagtid ayaa rajaynaa qaybta commentiga